Bedka dhulkani waxa uu 5 mar ka badan yahay bedka dalka Mareykanka, waxaana ku yaala boqolka buurood ee ugu dheer caalamka. Sidoo kale waa halka ay ku nool yihiin boqolkiiba 60 ka mid ah dadyowga dunidu, waana halka ay asal ahaan ka soo farcameen diimaha ay haystaan dadka ugu badan caalamku. muuqaalkeenan ayaynu kaga hadlaynaa xaqiiqooyin ku saabsan qaaradda aadka u ballaaran isla markaana hoyga u ah dad kor u dhaafaya 4 bilyan iyo 700 oo milyan oo ka mid ah 7 bilyan ee ku nool caalamka. Dhulweynaha qaaradda Aasiya waa qaaradda ugu ballaaran caalamka, waxaana bedka qaaraddan lagu qiyaasaa in ka badan 49 milyan oo kiiloomitir isku wareeg. Qaaraddan ayaa ka kooban 48 waddan oo ay ka mid yihiin wadamada Shiinaha, Hindiya, Sacuudiga, Suuriya, Ciraaq, Pakistan iyo wadamo kale oo aad u fara badan. Sidoo kale qaaraddan waxaa ku yaala 2 waddan kuwaas oo qaybo ka mid ah dhulkooda uu ku yaalo qaarado kale, waxaana ka mid ah dalalka Ruushka iyo Turkiga. dalka Shiinaha oo ku yaala qaaraddani waa dalka ugu dadka badan guud ahaan caalamka. Aasiya waa qaaradda ugu badan ee ay ka soo ifbixeen diimaha ugu badan caalamku sida Islaamka iyo Kiristaanka. sidoo kale qaaraddan waxa ay aasaas u ahayd qaar ka mid ah ilbaxnimooyinkii iyo xadaaradihii soo maray dunida sida ilbaxnimadii Mesopotamia iyo ilbaxnimadii Shiineeska. qaaradda Aasiya waxaa ku yaala 12 ka mid ah 44 dal kuwaas oo aan lahayn bad, waxaana ka mid ah wadamada Afghanistan, Armenia iyo Azerbaijan. buurta Everest waa buurta ugu dheer caalamka, waana mid ka mid ah meelaha ugu caansan qaaraddan. jasiiradda Borneo waa jasiiradda ugu ballaaran qaaradda Aasiya, sidoo kale waa jasiiradda saddexaad ee ugu ballaaran guud ahaan caalamka, waxaana ka horeeya jasiiradaha Greenland iyo New Guinea. lama deegaanka Gobi oo ku yaala wadamada Mongolia ilaa waqooyiga Shiinaha waa saxaraha ugu ballaaran qaaraddan. bariisku waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu caansan ee qaaraddan caanka ku tahay. haddaba 7 ka mid ah 10ka dal ee soo saara bariiska ugu badan caalamku waxa ay ku yaalaan qaaraddan Aasiya. qaaradda Aasiya waxaa laga helaa ubaxa ugu weyn caalamka, kaas oo ku yaala kaymaha Indonesia. diinta Islaamka ayaa ah diinta ay rumaysan yihiin dadka ugu badan ee ku nool qaaraddani. dhinaca kale Aasiya waa qaaradda ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamku. qaaradda Aasiya waxa ay martigelisaa qaar ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan caalamka sida Tokyo, Delhi iyo Shanghai. bartamaha dalka Vietnam waxaa ku yaala godka ugu weyn caalamka, kaasi oo la rumaysan yahay in uu jiray in ka badan 500 oo milyan oo sano ka hor. caasimadda Thailand ee Bangkok waa magaalada ugu magac dheer caalamka, waxaana ay ka kooban tahay 168 xaraf. dalka Singapore oo ku yaala qaaradda Aasiya waa dalka kaliya ee mamnuucay cunidda xanjada. sharcigan ayaana la hirgeliyey bilowgii sanadkii 1992 si loo ilaaliyo nadaafadda wadooyinka ee dalka. dhammaan calamada wadamada caalamku waxa ay u samaysan yihiin qaab leydi ah, marka laga reebo dalka Nepal oo ku yaala qaaradda Aasiya. Nepal ayaa ah dalka kaliya ee calankiisa ka dhigay 2 saddex-xagal oo isdul yaala. badda dhimatay oo ku taala qaaradda Aasiya waa halka ugu hooseysa caalamka, waxaana ay joogga badda ka hooseysaa 427 mitir. guud ahaan intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalka. haddaba daawade aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalka. fadlan subscribe saar kanaalka siina faafi, sidoo kalena barta commentiga nagula wadaag waddanka ama magaalada aad jeclaan lahayd in aan ka soo diyaarino muuqaalkeenna xiga insha Allah.